Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Marka hore waxaan ugu hambaleynayaa bahda jaamacadda Simad iyo ummadda Soomaaliyeedba 26 guurada ka soo wareegatay aasaasidda jaamacadda. Waa safar himilo cad oo ku bilowday in la soo saaro aqoon-yahano iyo hogaamiyayaal tayo leh. Sanadkii 2006 jaamacadda Simad waxay qaadatay go'aan istiraatiiji ah oo maalgelin ballaaran loogu sameynayo kor u qaadista aqoonta macallimiinteeda, iyadoo loo dirayo jaamacado caalami ah si ay ugu soo qaataan masters, PhD iyo tababaro sare oo cilmi baariseed. Maalgashiga muddada dheer wuxuu maanta ka dhigay Simad jaamacad leh macallimiin haysta PhD, khubaro cilmi baaris iyo awood waxbarasho oo suuragelisay fulinta daraasaadka sare ee jaamacadda. Sanadkii 2016 jaamacadda Simad qaybteeda daraasaadka sare waxay bilowday barnaamijyada masterska ee jaamacadda ay bixinayso. Tan iyo xilligaas barnaamijyadaasi waxaa ka aflaxay arday fara badan. Ardaydaasi qaarkood waxay awood u yeesheen in ay PhD u aadaan jaamacado banaanka ku yaala. Tani waxay muujinaysaa in ardayga Soomaaliyeed uu gaari karo heer kasta oo aqooneed haddii uu helo taageero iyo jawi ku habboon waxbarashada. Haddaba iskuulka daraasaadka sare ee jaamacadda wuxuu la wadaagayaa bulshada Soomaaliyeed in golaha sare ee jaamacadda ansixiyeen furitaanka heerka saddexaad ee waxbarashada. Heerkan saddexaad ee waxbarashada waxaa lagu bilaabi doonaa 3 program oo kala ah PhD in Business Administration, PhD in Political Science, PhD in Education. Saddexdan program waxay laf-dhabar u yihiin horumarka dalkeena Soomaaliya. Barnaamijyadan waxay u diyaarsan yihiin inay la jaanqaadaan heerarka caalamiga ah ee jaamacadaha bixiya PhD-da ayagoo leh manhaj tayo leh, guddi la socdo tayada barnaamijyada iyo fursado iskaashi caalami ah. Waxaan si sharaf leh ugu baaqayaa aqoon-yahanada, xirfadlayaasha iyo macallimiinta Soomaaliyeed ee doonaya inay qaataan shahaadada doctorate-ka inay ka faa'iidaystaan fursaddan. Safarkaaga doctorate-ka wuxuu ka bilaaban karaa dalkaaga iyo jaamacadda Simad. Waxaan mar kale xaqiijinaynaa ballanqaadkeenii ahaa in jaamacadda Simad sii wadi doonto doorkeedii hogaamineed ee dhisidda mustaqbalka Soomaaliya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.